have been illegally brought here. And that is your mandate. Yes. I don't know. Wameletwa hapa bila sheria, bila kufuata msimamo wao. xildhibaanka laga soo doortay xaafadda Isliya ee Soomaalidu ku badan tahay ee hoos tagta degmada Kamakunji xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa saaki subaxnimadii hore xabsiga ka soo daayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraysa 30 qof kuwaasi oo ay soo xirtay waaxda canshuur bixinta dalka Kenya ee loo yaqaan KRA iyagoona ku eedeeyay in dhalinyaradaasi si sharci darro ah ugu dhex dukaamaysanayeen xaafadda Isliya ee Soomaalidu ku badan tahay. haddaba waa kuwan wiil ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed ee saaka la soo xiray oo sharaxaya sababta loo xiray. alxamdulillaah rabbil caalamiin magacayga waxa soo wadani maanta meeshan Isliya waxa ka dhacay annagoo dukaamihii ganacsanayna oo joogno in la soo aruuriyay oo gaari loori dabada la soo galiyay kadib bumaanina la keenay midaas sida anagoo ganacsanayna waxaan aad iyo aad uga xumahay anagoo ganacsanayna waxna loo sheegin oo la dhihin sharciga dawladda markii sharci soo dejiso waa sharci in dadka loo keenay shacabka ah ama ganacsatada ah la dhaho sharcigan baa jiro ee sharcigan ku dhaqma waxna loo keenay malahan waana la soo waday loori waan lagu soo guray halkan la keenay alxamdulillaah waxaan noo dooday mheshimiwa MB-ga Kamakunji noo dooday aad baan ugu faraxsanahay inuu asaga xalida garabkaaga taagannahay waana ku faanaa waxaan leenahay xilli kasta mheshimiwa garab taagannahay laakiin waana ku xunnahay in annagoo ganacsanayno nala soo wado loori dabada nala soo guro nala keeno haddana nagula xareeyo hool aad la dhisay 1954 hool la dhisay 200 sano oo kibilaydi ka buuxdo oo dhuudhudu ku jirto aad arkayso in nagula xareeyo ma aqbalin anaga ma aqbalin midayada marka waxaan leenahay Kamakunji MB-ga aad baa u mahadsantaan leenahay sida maanta noo garab istaagtay thank you for your time. sidoo kale waxaa isna warbaahinta la hadlay xildhibaan Yuusuf Xasan hadaladiisan wuxuu u dhigay sida tan war helnay dad in suuqa laga ururinayo loona ururinayo inay bixiyaan permit-ka dabka marka sida arigoo kale taa dadkaasi loo soo ururiyay ganacsigoodii ayagoo shaqaysanaya oo hawlahooda iska wata ayaa laga soo ururiyay taana raalli kama nihin mana ogolin marka waxaan imid meeshan lagu haysto waxaan ka codsaday dhalinyaradii in la sii daayo dhalinyaradan hadda iminka way shaqooyinkoodii bay ku noqon karaan wax dhiba ma jiraan wixii maanta ka dambeeyana annagu uma dul qaadanayno askar suuqa inta iska wareegto dadka qabsata sida arigoo kale u qabsata warkaasoo kale hadduuna soo gaarana tilaabo adag baan ka qaadaynaa sharcigaanan la cuskanaynaa dadku waa inay og yihiin inay sharci leeyihiin inay xuquuq leeyihiin marka maalan qofka hadduusan haysan waraaq sharci ah marka waa in loo sheegaa waraaqdu u baahan yahay weliba si degan oo sharaf leh oo xishmad leh ninka ganacsiga xooggiisu shaqaystaa si xalaal u shaqaystaa canshuur buu bixiyaa marka waa in la ixtiraamaayo lagu shafraa hawshaasi uu haysto oo aan lagu dhibin hawshiisa meeqay ahayeen ogaan karnaa ma ogaan kara laakiin dad fara badan baa saake la soo qabtay boqol way gaarayaan bay ku leeyihiin dhalinyaradu anigu kuwan halkan ugu imid waa 22 gaarigii baa noqday may waan isu dambayn doonaa kuwana ugu dambeyntii ehelada dhalinyaradii saakay uu xabsiga ka sii daayay xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa aad ugu mahadceliyay sida wanaagsan uu garab taagan yahay Soomaalida ku nool xaafadda Isliya. Cabdiraxmaan Atore 5TV Nairobi.